daawadayaal waxaa hadda aan ku sugannahay stuudiyaha koobaad ee telefishinka home cable uu ku leeyahay magaalada hargeysa stuudiyaha waxaan ugula sugan dr ibraahim duxul oo ka mid ah dhakhaatiirta bartay arrimaha xayawaanka dr ugu horeyn waxaan kusoo dhaweynayaa telefishinka home cable maalmihii lasoo dhaafay waxaa aada loo hadalhayay islamarkaasina magaalada hargeysa ka dhacday dhacdo dad badan la yaab gelisay oo ahayd in ay magaalada hargeysa u gaadho ku jeeday la xidhay darawalkii jeeday islamarkaasina lacag $10,000 ku dhow oo la sheegay in laga qaadayo magahana bal maadaama arrimaha xayawaanka baratay soo dhawow arrintaasi ba ka waran aan dhawahay aad u mahadsan tahay adiyo bahweynta telefishinka home cable tv oo bulshada la wadaaga barnaamijyo waxtar waa run arrinkaasi ka istaagan buu ahaa eedu waxay ka mid yihiin xayawaanaadka dadkeena la nool ee domestic laba u qaybsamaan qaar wild dog leedah iyo qaar domestic dog leedah oo dadkan kuwa la nool isticmaalka eedu muddo dheer bay adduunka ka soo jireen oo waa xayawaano dadka macnaha ku xeeran kuwaasoo soo diinta islaamka way noo sheegayso qisatul kahfi asxaabta waa kii saddexdii dhalinyarada ahayd ee godka ee magaalada ka baxay baa la socday kaasoo culimada tafsiirka sheegay inuu ahaa in uu islaam ah taa marka laga yimaado arrinkaa hawshiisu taagnayd dad kole siyaabo kala duwan bay u qaadeen shuruucda adduunka xayawaanku xaq iyo xuquuq buu leeyahay waxaa jira qof kasta wixii uu gacanta ku hayay isagaa ka mas-uula sidaa waxaan u leeyahay diintuna guud ahaan way qeexday shuruucda caalamiga waxaa jira waxa la idhaha 5 freedoms 5 xuquuqood oo xayawaanku guud ahaan leeyahay oo la isku raacsay caalami waxaa kaloo sidoo kale jira international animal welfare in la ilaaliyo guud ahaan xuquuqda xayawaanka gaar ahaan batiska eedu sababsadaha kale waxay ka mid yihiin xayawaanada dad la dhaqday dab joogta ee guriga jooga ama dadka la rabaysto horta dadku waxay yiraahdaan si guud ahaan markay qeexayaan qolyahan cilmiga xooluhu ama xayawaanku saddex jeer bay dhibaatada ugu badan eedagu soo gaadha mid waxa weeye dhibaatooyinka sida maalintii dhowr dhacay gawaadhida ka labaad waxa weeye inay iyagu iscunaan oo eedu ay kala inuu cuno oo saa damage ku soo gaarsiyo ka saddexaad waxa weeye inuu darxumoodo eegiyo xanuunaynta ku dhacaan dabeedna eegii sidaa uu ku dhibaatoodo oo kuwa maanta bulshada dalkeena haysta horta mid baa muhiim oo ta ugu horeysa waxa weeye dal marka la soo gelinayo xayawaan aan native u ahayn oo dal kale laga keenay waxaa muhiim ah in wasaaradii dalka mas'uulka iga ahayd marka hore la ogeysiiyo IRC adoo hay'ad la yiraahdo adoo Mareykanka u qaabilsan oo marka xayawaan dal la soo gelinayo waa in la ogeysiiyaa wasaaradii dalka waxaanu leeyahay waxa la yiraahdo waxay leeyihiin betisku ama xayawaankan guryaha lagu rabaysta waxa la yiraahdo IDB oo la yiraahdo betis information detail information oo ah waraaq ay ku qorantay xogtii xayawaankaas oo dhan intii vaccine u qaatay eegaasi intii meeting sameeyay intuu dhalay wixii oo dhan ay ku yaalaan marka horta ugu horeyn waxa in eeyga wasaaradii la soo maray oo ta ugu horeysa qodobka hore la isweydiin minister kana la xidhiidhay wasaaradda xanaanada wuxuu sheegay inaan hawsha wasaaraddu aanay kala hadal waxna ka ogeyn talabaad waxa weeye eeyga case-kiisu yaa yeelanaya macna dambigeed betiska qofte markuu waxa la xayawaankii de qofku markuu de soo qaato soo guriga ku haysto mas'uuliyadda waxa iska leh qofkii soo qaatay wixii ka yimaado haddii uu qofkaasi si caalamka waxa dhacda dhowr siyaabo dhibaato soo geystay eegii marka qofkii markuu ama wixii betiska markuu guriga ku haysto inuu mid kale oo jaarkiisa wax yeelayo inuu qof wadada marayay ama qof kale oo aanu de garanayn basaasoo kale inuu cuno iyo taasoo ah inuu tuda baxo isaga dhibaato la soo gaarsiiyo marka ninkaas uu dhalay wasiir hore cali waraacade waxa arrinkiisa hadda markaynu eegnay xaqan aynu ka eegno shuruuca caalamiga waxay noqonaysaa betis negligent oo dayacaad isaga ka timi de inankii darawalka markii la wareystaan wareysiga daawaday wuxuu yiri waxaan wuxuu yareenayay kale Soomaa de marka waxa way xayndaabkii loogu talagalay guriga uu ka soo baxay marka halka dayac baa ka jira marka qaladkaana waxa leh qofkii ownerka ah ee betiska iska lahaa marka arrinku sidaa weeye inkastoo dadka waan arkay bulshada inta waa iska bulsho caadif iyo qof basi buu qaaday qof qaar baa waxa khalad kale inaan kan darawalka waxa khalad kale isaga anu ma u cudur daari maayo malihi in la jiro eeyda wasax oo eeydu de waxa weeye waxay ka mid yihiin xayawaankana ilaahay baa ina amrayay wax kasta in si fiican loo dhaqmo in Allah ka tabal ihsan ala kulli shay marka arrinkaas isaas oo ahaa guud ahaan saas uu noqonaya marka la eego dhanka marka la iska tago sharci
way doctor haddaad eegto magaalooyinka waaweyn ee somaliland oo kale gaar ahaan magaalada hargeysa waxaa jira in xayawaanada aygu uu aada ugu dayacan yahay islamarkaasina uu buuxdhaafiyey magaalooyinka markaa talow yaa qaadaya mas-uuliyadda xayawaankaasi horta iniyo waxaa jira cabdimajid wasaaradda xanaanaha xoolaha xajeer ayaa u qaabilsan ilaalinta xayawaanka guud ahaan xoolaha iyo xayawaanka iyo wasaaradda deegaanka marka way jirtaa in badan baynu midiyaha iyo meel kasta ku aragnay iyadoo lasoo dhigayo dhibaataysan in badan baynu qaar gaari jiray laba hab ayaa lagu joojin karaa arrinkaa laga hortegi kara horta haddii inagu dee eyga adduunka waa la manaafacadsada eygu diini ahaan xaaraan ma nabigu alay sala slam xadiis buu sheegay 3 hab qofkii eyga uga faa'iidaysanay dee eygu waa xoolo waa xayawaan la manfaacadsan karo qofkii meel ku ilaashan kara qofkii raacay xoolo raacsan kara qofkii adduunka saas oo kale waa laga faa'iidaysta haddii aynu ka faa'iidaysanayn problemka iyo dhibaatadu leeyahay si baa lagu joojin karaa in female-ka dhadig castration lagu sameeyo oo laga baloogareeyo xididkii macnaha ilmaha dhalmada qaadi oo tadhadig eeyada dhadig in dhalmada laga xidho kalabaad oo ah in lagu joojin karo ama lagu xallin karo in midkii dhibaato weyn soo gaadho haddaan dee dawadiisi haddaan la karayn ama marka la eego aan xanuunkaan ka kici karayn in dee irbad lagu mudo saa dee nolosha lagu dhaafiyo diinta islaamka kale waa gosha marka mas-uuliyadda ugu weynna waxay saaranta wasaaradda xanaanaha xoolaha oo in badan baad xoolaha wax ka qabatay taana insha Allah dulaha ka dhigay dusha u ridato oo hawsha wixii dambe laga hortago ayaa muhiim way daawadayalkaas waxa uu ahaa Dr. Ibrahim Duxul oo nagu soo booqday stuudiyaha koobaad ee telefishinka Home Cable ku leeyahay magaalada Hargeysa Dr. waan kaga mahad celinaya waraysiga aad baad mahadsantahay